Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga wasaaradda madaarka sidii ay u kala war qaadan lahaayeen warna isku sheegi lahaayeen ujeedadiisa iyo nuxurkiisa waa intaas waxaan jecelahay anigu hadalka dheerayn maayo laba saddex qodob ayuu maan ka hadlayaa marar badan oo horena aan ka hadli jiray waqtigan iyo xawar hadda aynu ku jirnaa waa xilligii xagaaga ay dadka reer Soomaaliland dalkooda ku soo guriyo noqonayeen dadkaas waxay looga baahan yihiin adeeg shaqo wanaag hufnaan shaqo iyo dulqaad waxaynu oran karnaa xagaagani amba sida ay rijaalada dowladda statistics ay samaysay ay rajaynayso waa xilligii ay ugu badnaayeen ee qurbajoogku dalka ay ku soo guriyo noqon lahaayeen amba waa samarkii ugu badnaa ee la rajaynayay dadka xagaaga ee waddanka ku soo guriyo noqonaya sababo badan awood hadday noqoto xagga barwaaqada oo waddanka barwaaqa ah hadday noqoto waddanka doorashooyin iyo waxba hadda xilligan aan ka dhacayn waxyaabo badan markii la isu gooyay dadka reer Soomaaliland waqtigan numberka ugu badan ee Soomaaliland baa imanaya inta marka laga dadka faraha badan lana dhammaantood waxay ka soo degayaan ama ay soo marayaan madaarka caasimadda ee Cigaal International Airport waxa ay waddankaas iyo Allahumma salli ala Muhammad ay madaarka kala kulmaan ayaa dhammaan ku qiimeynayaan Soomaaliland inteeda kale oo dhan marka dadka ka bixinaya sawirka ee Allahumma salli ala Muhammad sawirka guud bixinaya waa madaarka caasimadda cidda ka turjumaysa madaarka caasimadda xumihiisa iyo samihiisa iyo wanaagiisuna waa shaqaalaha ka howlgala madaarka caasimadda Cigaal International Airport mas'uuliyad weyn ayaa ay nasaaran sideedaba mas'uuliyadda ay nasaaran waxaynu u baahanahay inaynu sidii ugu habboonayn ama sidii ugu quruxda badnayd ama sidii ugu fiicnayd qof bilaadani intuu dadaali karayo uu dadaalo inaynu ku gudano shaqadaas ayaa la inooga baahan yahay marka waxaan jecelahay dadkaas soo dhoofaya waa dad aan laga yaabo aan aragba waddanka 20 sano ama 25 sano Soomaaliland jirtay waa dad looga sheekeeyay wanaaga iyo xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka ka jirta waa dad Soomaaliland dhamaanteed u hamoon qaba marka waxaan jecelahay dadka rabitaankooda iyo perception-ka ay ka haystaan waddanka mid ka fiican inaynu ku qaabilo oo aynu ku soo dhaweyno shaqaalaha dhammaan qofku process-ka uu soo maro immigration-ka ugu horeeya maaliyadda ku xigta xamaalka ilaa taksiga madaarka ka baxaya waxaynu u baahannahay services isku mid ah oo waafaqsan service-yada adduunka madaarada kale ay la mid yihiin in aynu u muujino amba inaan baasaboor kale ka qaadin shandada kala cararin lacag dheeraad oo aynaa weydiin waxyaabaha soo dhimo waxyaabaha shaqaalaha madaarka aan ugu digayno ee Allahumma salli ala Muhammad uga dardaarmayno arrinta kale ee iyadana jecelahay inaan ka dhawaajiyo waxa weeyaan waa xagga amniga saraakiisha amniga ee ku shaqada baa ka hadli doonta laakiin isagana waxaan jecelahay amniga inaynu dhammaanteed qof kasta oo shaqaale oo madaarka ka hawlgala inuu isagu booliis u noqdo inuu wax kasta iyo qof kasta iyo wax kasta oo uu arko ee uu arkayo qofkaas inuu Allahumma salli ala Muhammad khatar ku yahay ama inuu dareen ka galo inuu hay'adaha ammaanka ee ku shaqada leh ama hay'adda security-ga ama hay'adda bilayska dhammaantood inuu ku soo wargeliyo si degdeg ah waynu arkaynaa waxa ka dhacaya wadannada kale ee maanta adduunka kamana quwad badnin kamana dhaqaale badnin laakiin waynu ka dad iyo ciidan fiicanahay baan qabaa oo dalkeena lagu dhex dhooban karin marka waxaan jecelahay inagoo dadka iyo ciidanka adeegsanayna inaynu dhammaanteed bilays aynu wada noqono dadka hadlayo oo farabadan awgeed waxaan ku soo gabagabeynayaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan mas'uul iyo midjaba inaynu amniga iyo adeega madaarka dhammaanteed inaynu ka wada shaqeyno aynu meel ugu soo wajeysano assalaamu calaykum kala duwan ee wasaaradda iyo airport-ka shaqaale weynaha aad iyo aad ka u qiimo badan ee kala duwan ee wasaaradda dawlista iyo hawada iyo adeegayaasha kale aan wasaaradda ka tirsanayn haddana ka badan shaqaalaha wasaaradda ee ciidamada kala duwan ee airport-ka aad iyo aad baan idin salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib
wax badan ugu taaban maayo insha Allah bismillaahi kariim waxa waa hal qodob halka qodobna waa iska garanaysaa waa qodobka ku saabsan xagga ammaanka insha Allah kuna sii dheeraan maayo waxaan doonayaa inaan ka taabto laba qodob oo kaliya qodobka hore wuxuu yahay bal ogow saaka waxaan ku soo toosnay fadlillaah nabadgelyo dhammaantiin caalamka adduunka meel ay saaka ka dhacday ma jirto nimcada aynu saaka isugu nimi aynu ku soo toosnay caalam badan oo adduunka ka mid ah saaka kama jirto kama dhacay waad ogtihiin markaan saaka leeyahay maalmihii ka sii horeeyay la mid bay ahaa ogow furaha noloshu waa nabadgelyada ogow nimcada noloshu waa nabadgelyada ogow isteelka saaka dharkaaga u xidhatay wuxuu ka turjumayaa nabadgelyada ogow haddii aan nabadgelyo jirin uleeya bilay ka tahayna inaan odhanayn aynu servicena hagaajino nimcadana aynu jaqno cid odhan mayso ogow qof kale iska daayo qof xamaali garoonka iman maayo haddii wax ka dhaca dhammaanteen waa wada allah inaga hayo ogow haddaanad qaybtaada ka qaadan xaaladda ammaanka hawl aad leedahay oo aad u xil saaran tahay baad gabtay ogow haddii wax yaroo aan macno lahayn aad ka horraysiiso hawl aad xaq u leedahay waxaad gabtay hawshii nabadgelyada ee noloshaada qusaysay ogow haddaanad u fiirsan adeega ama serviceka aad bixinayso ee xagga nabadgelyada kaa quseeya hawl aad leedahay ayaad gaftay oo aad ka tagtay aan u soo daadego waxaad ogtihiin 24 saaca imika u dambeeyay oo waqti kale bay iska daa adduunka wax ka dhacay wadanka imika la Turkiga waad maqlayseen saacadahan imika aad soo galeysaan ee aynu shirkeena soo galeynay waxa ka socda waa xagee waa airportka laftiis balogaada waa airportka laftiis dhexdiisa weeyaan waad maqlayseen sidaan u malaynayo inay dad dhowr iyo 30 qof ilaa 6 iyo 30 qof oo shaqaalaha airportka adeegaya u badan ay ku dhinteen dadka dhaawacmayna 150 qof ay gaarayaan bal ogow meelaha waxaas ka dhacaya waa meelo aan cidiba awood yeelan karin ilaahay amarkiisa mooyaane inaan la gelin de maalmihii barakaysnaan ku jirnay qaaliga ahaa ee leelatul qadr ku jiray in badan inuu ka hadalay marka qof kasta waxa laga rabaa rag iyo dumarba inuu isku dayo inuu ka faa'iideysto maalmahan soo haray imika ilaa 6 maalmood ama 5 maalmood ay noo baaqay yihiin waayo qofku ma aha inuu adduunka kaliya u noolaado nolosha dambe baaqayna waa ta aakhiro weeyaan marka taasna inaad ku dadaasho horumarka adduunyo iyo horumarka aakhiraba inagu markaynu islaam nahay kelmadda islaam waa nabad al-islaamu huwa salaam shirkeena maanta waxa ugu badan inuu ka hadlaynaa dawaa ammaanka iyo nabadda iyo maaragtay diinta islaamku waxay bari ka tahay oo de mar kasta la cadeeyo had iyo habeen oo quraanku inuu cadeeyo ilaahina inuu cadeeyay sida magaciisa ka dhadhamaysa inaanu islaamku waxa caalamka ka dhacaya magaca islaamka lagu shaqeysanayo inuu bari ka yahay oo waxba kama jiraan ka soo qaaday nabigeena kaleey salaatu wasalaam sida xadiisaad ku aragteen wuxuu yiri al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi qofka muslimka ah ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqoonsiyo inuu qof muslim yahay waa qofka ay ummadda ilaahay ammaan ka hesho ma aha qof intuu suun soo xidho ama gaari la soo cabeeyay soo kaysto ama maaragtay soo qaato waxyaaladii wax lagu dilo ummad islaam ama ummad kale oo gaala aba isagoo magaca islaamka ku adeegsanaya nafta ka jaraya ama halaagaya taas diinta islaamku bari bay ka tahay cidna shaki haday kaga jirto
inuu saa u fahansanaado weeyaan aayado fara badan oo qur-aan aad ku aragteen qofka muslina qof ka sudila in maaragtay uu ku waarayo markuu dhiiggiisa xalaalaysto jahannama walciyaadu billah sidaa darteed axaadiista rasuulka waxaa ka mid ah sabaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qof muslina inaad iska caaycaydo sharaftiisa meel kaga dhacdaa waa faasiqnimo iyo daacadnimo ka bax inaad dishaana waa gaalnimo waa marka aad dhiiggiisa xalaalsato sida imika caalamka ka dhacaysa marka walaalayaal sidaa darteed diinteena islaamku waxay maxaanku dhahday waxyaalaha ugu waaweyn ay u soo degtay waxaa ka mid ah inay ilaaliso 5 arrimood oo waaweyn oo mujtamaca dan u ah waxaa ka mid ah nafta bini aadamku waa xaaraan lama taaban karo biay xaq ilaahay baa nafta iska leh iska daa qof kaloo bini aadan oo kale oo aan adiga ahayn xataa naftaada xaq uma liidin aad u jarto naftaadan adiga ku suran xaq uma liidin aad u jarto laano waa amaano ilaahay ku dhiibtay maxaad u malaynaysaa dad kalena markaa inaad nafooda wax gaarsiiso ama dhaawac ama dilba diinta islaamku nafta way ilaalisay waxa kale oo ilaalisay qofka diintiisana waa in loo ilaaliyo diinta islaamku waxay ilaalisay caqliga qofka caqligiisa waa in la ilaaliyo oo la istiqraamin ama aan daraag lagu sameeynin waxa kamida qofka maalkiisa diintu way dhowrtay waxa soo dhanay amniga soo iskaliya waxa kamida qofka sharaftiisa inay diintu ilaaliso oo sharaftiisa iyo sumcadiisa aan si dhayala loo dilin oo loo bahdilin marka walaalayaal yaana ku sii dheeraanine muqawamaadka ama waxyaalaha tiirarka waaweyn ee islaamku u dhigay ammaanka waxa kamida qofka muslimka inuu qof hagaagsan oo aqeedada saliimka ee rasuulku keenay sideeda u raaco waxna ha dilin waxna ha dhicin waxna ha caayin waxna ha ceebayn islaam nabadgelyo asalkiisu waa sidaas waxa kamid ah waxyaalaha maaragtay ammaankeena inoo dhowraya qofku inuu macsida ka fogaado aayadii quraanka inuu akhriyay walaalkeen amiin inna qaaruna kana min qawmi muusa fabaqa alayhim يعني نين إلهي نمعسيي أو مارتي إلهي خزائن تو استدي مفاتيح لي سو كليا كو عقاد سيرين مركي وكبرياء ومعسي كل عاي إلهي دول كولا جرا أمان كيسي ولا بابيو هلاك سني سيدا درتد إنه قفك معسيدا سكيل عليو إنه قفك وحوانا أحسن مارت كل رقمه إنه قفك خلاق دي سيل عليو إنه قفك مسكح دي سردسو وحيالها لقرب واجباتك والسمية سيدا الصلاة الصوم عباداتك waxaas oo dhan qofku markuu dabaqo wuxuu ku soo dhawaanayaa marka ka dambaysa inuu amaankiisa iyo amaanka ummadda uu la nool yahay oo xafido marka wax yar idin wadaago bal sida aynu doonayno ama aan sidii imaka taliyiga horeeyba ka hadlay waxa ogtihiin inuu amaanku yahay waxa ugu muhiimsan ee aynu runtii halkan ku hayno amaanka waxa inoo qaabilsan shaqaale gaar ah oo ka tirsan madaarka laakiin waxa jirta waa waxa kaliya ta amaanku hadii aynaan iyaga laftooda ku halin karin yaani ina kamaanta boarding garanayo operation ka wada haday shaqadu dayacanto isaga uun bay wax yeelaysaa madaarka waxba ma yeelayso ina ka xamaalkii haduu shandada si fiican ugu qaadi waayo ama si fiican u fulin waayo isaga ayuun bay wax yeelaysaa laakiin si guud madaarkii uma saameynayso laakiin haday shaqada security-gu haday dayacanto dhamaanteen inteena halka fadhida nin kaliya to halka soo shaqo tagaya ma jiro sidaa daraadeed waxaynu u baahanahay inaynu isku xidhnaano oo shaqaalaha amniga aynu runtii kala shaqeyno sidii aynu uga caawin lahayn xaaladda ama shaqada ay ku jiraan runtii waxa jira nimankii argagixisada ahaa dunida meel ay joogaanba ama Afrika ha haato ama Aasiya ha haato ama Yurub ha haato ama dunida inteeda kala ba haatee waxaad moodaa imaka sanadihii u dambeeyay ama sanadkii u dambeeyay inay hawlgaladooda u bedeleen madaarada oo ay had iyo jeer imaka madaaradii ay u bedeleen waxay madaarada ka heleenba inay madaaradii dooneen ay ka dhigteen targetka ugu muhiimsan inkastoo argagixisada marka u horeysa madaaradu ay u yihiin meelaha ugu muhiimsan ay dal ka curiyaamin karaan ay u yihiin haddana waxaad moodaa imaka inay goljilac ay heleen ama si ay u dhacdayba inay ilahoodii ama
ama ay u soo jeesteen inay madaaradii dunida qarxiyaan waxaa xalay u dambeysay in Istanbul dalka Turkey inay qaraxii weynaa oo ka dhaco oo inama argagixisay gudaha u galaan oo imaka saaka la sheegayba inay xataa 36kii xalay dhaafeen dhimashadu konton ku dhowdahay taa waxaad halkaa ka arkaysaa in waxa inaga taasina siinaysaa message bay noo diraysaa ma aha inaynu idhaahno Turkigu wuxuu ku yaala qaarad kale maxaa iska keentana waxaynu nahay same field bayn ku jirnaa madaar baa la qarxiyay wixii madaarka ka dhacay waa inay inaguna wax ka barano weey waayo wuxuu nagula jiraa deenagu maxaan ka duwanahay waxba kama duwanin wixii Turkiga ka dhacay waxaanan runtii ku dhiiri gelinayaa inaynu dhammaanteen qof kastaaba uu halkiisa waxa la yiraahdaa xayawaanka baalan xayawaanka la yiraahdo waxa ugu arag dheer baa la yiraahdaa gorgorka waxaan doonaynaa inaydu wax ku aragtaan dhammaantiin eagles eye inay wax ku eegtaan runtii oo aydun isha gorgorka yeelataan ama inaad noqotaan kuwa bini aadanka ugu aragtida dheer waa inuu atashan kala galay laba biloodna in wasaaradda iyo maamulayaasha iyo wixii talo iyo tilmaamo la siiyo bisha saddexaadna inaad ku yeelataan oo mas'uuliyiintiina wixii su'aalaha weydiisaan wixii aad qabtaan aad la wadaagtaan marka waxaan idin sheegaynaa xasuusinayaa shirka ku xigay inuu yahay kiini insha Allah ta'ala su'aalaha weydiin doontaan section walba idinkoo isii habeeyay wixii la toosinayo wixii aad tabanaysaan idinkoo u dhigay qaab asluubaysan oo wanaagsan taa waan idinku boorinayaa idinku dhiirigelinayaa أول بين سكول يرجع للجرمي هذيك أنا ضدك حاجة جوف فينا ما دليل اليوم أدي أدو كنتو صغير بقول معها لكن وحوي ونفسي حاجة كدوني إن هالك كسيحو جسا مركز ضدك دبلت كي مادة يو ضدك مداك عليك سلاي كلها الليا وحلا جاي بينا لك مش شيء أديك اللي فهم معه لكن هبدق كينا إن إذا هذا وحلا جاي بدت بقول قايلين ليا وبوق فرها تاجية قام فينو نورله وحلا جاي بينو البريشة حوم كبحيو ضدك قرب شو جاي ضدك عبان كاي for example marka tahay qof shaqaalaha oo madaxda ka shaqeeya inaad aayar hadasho oo si fiican qofka ula hadasho degan waxay ka mid tahay adeega dadka siinayso wali waxay nagu badan farataagtaaga waxay nagu badan laba isu jira 30 mitir soo qaylinaya waxay nagu badan inaan codka hoos loo dhigin islaamkeena ku jirta inuu qofku aayar hadlo waa kii Luqmaan Sheekh Maxamuud baadee Quraanka in badan ma aqaan Sheekh Maxamuud bay noo sheegay Luqmaan ninkii xakiimka ahaa markuu weeninayay inankiisa وأنا يكسيني وحكملها واخذ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير عطك هو صدق أردت كل دوني أنا كان له حوية موبيلادي أي نكتشو شنو رباطك وأوتي عضلة شقين يسوع موبيل وين سمارت فون تسوق عطينا الوضوء وين نجي سلك أنا يديك ينقبا يعني شغلوا ونعكسين هذه كلمة وحلا ممنوعة تذكر بقول موضع قاطع وحقار بيسكديني قف كل بيبتان qaar bay isku dayeen inay dhinac kala soo maraan qaar bay doonayeen halka darbiga kastamka ka soo tuuraan intaas oo kiisu jira waxa ku wanaagsan hadaa dood ka qabtay in keenaad sheegto tramwalki kama maarmayaan laakiin marka wax la mamnuuco waxaas la mamnuuc hadaa maanta naxadood bixina xadood saad ma naxado maalinta afraad baa lagu qabanay hadii lagu qabtana shaqadaada baa qirqirgelis marka waxa la idinka doonayaa 8 saacadood ee remote ka joogtaan inaad mobilkiiska ilowdaan supervisor walba section ku haystay isaga moolku waa loo ogolay hadaad qoyskaagii iyo arrimo aad leedahay supervisor kuma numberkiisa soo siinaysaa wixii emergency waa lagu soo sheegay waa lagu dhiibaya section walba ninka madaxda ka hal mobil buu haysta isaga wixii muhiim ah ee daruuriyaad ah la isticmaalaysaa laakiin inaad soo qarsato inaad shaqaalihii amniga qayb ka mid ah aad xuduudato lama dooni waxaynu rabnaa arrinta 100% inaynu ka goono raadiyadii laamaha aan soo qaadan laamaha airportka raadiyadii howlgelin waxaan ku boorinaynaa inay raadiyadii ay isku ogeyn ay runtii howlgeliyaan si communication cooperation-ku oo si fiican u socdo oo wanaagsan arrinta kale doonayna ka hadlo waxa way xagaagan markuu dhamaado sidii caadadeenoo ahayd waxa la bixin doonaa abaalmarin waliba lacag insha Allah ta'ala section walba ninka ugu wanaagsan adeeg ugu fiican bixiyay qof walba waxa la doonayay in wanaag ku tartano inaynu dadka
aynu u khidmaynayno waa laba dhinac dhinacna dee adduunyada baad kaga helaysaa abaalgud iyo promotion iyo wanaag dhinacna camal saalixa weeyaanoo qofkaa musaafirka aad caawinaysa haddaad niyeyso waxa weeye ilaahay ajar buu kaaga dhigayaa uu kuu qoraya ugu dambayn aad iyo aad baan runtiida ku mahadnaqaya rag iyo dumarba aad iyo aad baa mahadsan tihiin dee waa lagu celceliyey shaqada aynu qaranka u hayno waa shaqada ugu muhiimsan dalka waa amni waa adeeg waa shaqo aan nasasho lahayn runtii idinka baqan maayo xagaagan iyo xagaayada soo socdaba waxaanu rajeynayaa inaad halkaa kasii wada doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii aan idinla joogay muddadii yareed aan idinla joogay maxad aada u ballaaran ayaan idin soo jeedinayaa hawshiina saa u qabsataan iyo sida aad qarankan ugu adeegtaan iyo sida dulqaadka aad u leedihiin ma jirto wasaarad ka shaqo badani wasaaraddan duulista ma jirto wasaarad uu shaqaaleedu 4 subaxnimo ama 3 subaxnimo uu soo kalaho waa wasaarad aan lahayn jimce iyo fasax midna aan lahayn waa hawl dheeraada oo aan leenahay oo ka duwan shaqaalaha dawladda meelaha qaarkood waxaa lagu bixiyaa extra time baa la dhaha waxa weeye lacag gooniyaa lagu bixiya laakiin waxaan aada iyo aad niyadda kolle ugu hayaa ama aan waktiga aada soo kacdaan iyo fasax la-aanta iyo timeka aada taagantihiin meeshaas ee aan kaga duwanahay wasaaradaha kale dulqaadka aad u leedihiin iyo hawsha baaxaddu intay laagtahay ee aada ummadda somaliland u haysaan waxaan u mahadnaqayaa ciidanka ama ahaado ka militariga ama ahaado ka booliiska oo marka adeegto nolosha ay ku nool yihiin iyo hawsha ay hayaan ay aada u kala duwantay waxa aan ka codsanayaa oo kale in marka la soo galo shaqada in lagu koobnaado goobta shaqo lagu koobnaado oo movementka shaqaale dhexdiisu isdhex soconayo airportka qolo waliba meesha ka shaqeynayso inay ku ekaato waanay dhicin inuu nin xamaali yimaado muxuu ahaa u soo gudbo qaybta operationka ama qaybta security-ga wada security inaanay u gudbin qaybta operationka waxa weeye standard of work iyo procedure shaqadu sida ay tahay weeye caalamka sidai shaqadu tahay weeye inaguna ajane baa ku imanay cid walaba waxaanu nahay wejiga ummaddana waana tusnaa at least inaan ku dhownahay standardka caalamka waxa weeye hospitalityga soo dhaweynta ixtiraamka haddii uu information meel kaa weydiiyo adigu dhoonsho ha u raacin adigu raacsan waxaad u tustaa ka shaqeeya meesha lafteeda ama qaybtaa ka shaqeeya ugu yeedh waxaad tiraa qof kaliya waxaasuu doonaya laakiin adigu ha urkicin telefoonada la joojiyey uma jeedo inaan idinka idinku cadaadiyo ma aha inaan muxuu ahaa culays idin saaro ma aha wax cusub oo aan la imid oo aan idinku dhibaataynaya maaha wasiir walba qof walba marka la bedelo oo mid kala yimaado
muxuu loo yimaadaa laakiin dadku way yar dhibsadaan anugu waxaan u arkay maanta telefoonkayga haddii si layla soo xidhiidho oo dawladdaas ila soo xidhiidho haddaan heli lahaa telefoon gacantayda kuma qaateen waayo wadna xanuun baan ka qaadayba 180 ayaa soo gala saacaddii hadda u yarta 180 oo mid shaqada aan joogno mid shaqo kuley aanu jirin waxaan u jeedaa attentionka bani aadamkoo dhami wuxuu raacay imika waxa la yidhaaho social media ayuu raacay innagana waxa weeye shaqada laynoo diray waa mid 24 saacadood indhaheennu inay soo jeedaan oo jidhkeennu soo jeedo oo caqligeennu soo jeedo oo maskaxdeennu soo jeedo ayaa laynoo diray labadiis ma qabanayaan qodobka labaad maanta caalamka haddaad meel un tagto ama dawlad u shaqee ama boos u shaqee meel cid kale private u shaqee ethics of work way ka baxsan tahay telefoonka ethics of work waxa la yidhaaho kuma jiro 8 saacadood wax iskale ama dawladda iskale ama ninkaa booskii aad u shaqaynayso ayaa iskale marka ma lihin shaqaalaha cadaadiya waxaanu nidhi salab aan joojina bahalaa baahi degdegi hadday timaadana ha loo sameeyo ku agaasimihii iyo maamulihii ha loo sameeyo meel ay kala xidhiidhi kartaan dadkoodii ay kala xidhiidhi karaan gurigii wax ku dhici karaan carruurtii wax ku dhigi karaan adigaa lagu baahan karaa waxaan meel ay kala xidhiidhaan u sameeya oo degdeg ah laakiin gabadha ama inanka daba fadhiya mishiinka checkinka ama controlka luggage-ka ama dadka qofka daba fadhiya ee bahashaa ku maqan ama YouTube ku jira ee sheeko wanaagsan u socotaa movie wanaagsan u socday movie wala maskaxdu ugu duuban yahay inkastoo baasha ay arka soo inay marayaan laakiin attention-ki wuu sii jeedaa xilkayna saarna uu ka ballaaray inta wax weeye taan leeyahay qofka soo jeedo maskaxdeena iyo caqligeena iyo jidhkeenu inay soo jeedaan إن شاء الله هدي إلى هو سدا وشجع عمر أما جاسمو شجع أنا واحد شعلي إن كسر ما هدي أي صوت تقلقط حتى العكس هذا وزارة العكس أنا شغال هيكش مر بس ده واحد نو سوق أنا ما أكون حريص منه meel ama waxay geli airportkay geli ama shaqaalahay geli waliba shaqaaluhu horeeyo ayay geli waan intii aan joogtay iyo intii naga maqan waxaan ku celinayaa mar labaad jimcaha shaqaysaa ma lacag dheeraadaan siin lahaa jimco kasta markaad shaqadiina qabsataan inta wasaaradaha kala nasanayo haddaan lacag hayo lacag baa idinku bedeli lahaa laakiin mahadnaq baa idinku bedelayaa iminka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waan aad iyo aad baan ugu hanweynahay dhammaan shaqaalaha wasaaradda inkastaanaan wada gaadhin kuwa berbere jooga kuwa barco jooga kuwa lascaanood jooga iyo kuwa laakiin inta halka joogta muuqaalkeeda aanu arkan ee qaboobaha shilaalka afar soo kacas ee kulayla afar soo kacas in jimco lahayn mas-uuliyadda culus ay qaadeen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan isku ognahay shaqo wanaag dareen indhihiinu ha soo jeedaan waxaa maanta ka dhacaya istanbul
meel kama maqna